madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cajar ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA-da waxa uu sheegay in la bedeli doono calanka dowlad deegaanka Soomaalida isla markaasina dib loogu soo celin doono calankii horey uga muuqday astaanta calanka Soomaaliya. madaxweyne Cajar ayaa dhinaca kale wuxuu sheegay in ahmiyadda koobaad uu siin doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa xuquuqul insaanka gobolka isla markaasina cadaalad uga shaqeyn lahaa wuxuuna sheegay inuu si weyn loogu tuntay xuquuqul insaanka. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ayuu igu waramay. waa mahadsan tahay waxaan u arkaa mas-uuliyad balaaran oo maaragtay madaxa laga saaray waxaan aaminsanahay inaan maaragtay si daacadnimo oo ku salaysan in bulshada Soomaaliyeed gobolka ku nool dhammaan cadaalad loo sameeyo aan u gudan doono waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka in ay kaalintooda ka ciyaaraan soo celinta sharciga iyo nidaamka ee deegaanka. waa gartay ma filaysa hore in lagugu magacaabayo xilkan oo qorshe ma lahayd degsan oo aad rabtid inaad ku dhaqaaqdo? anigu ma filayn in laga magacaabayo koor musharax ma ahayn laakiin fikir ahaan maadaama qof qoraa ama activist ahaa waxyaalaha ay tahay in gobolka lagu dhaqo ama siyaasadda ay tahay in maaragtay gobolka lagu wado way isaga tahay diyaarsanaayeen maadaama mar walba aan dad ka hadli jirnay oran jirnay waa saa u dhaqantaa sidii aan awal lahayn ha u dhaqantoba hadda u dhaqmana marka wuu noo diyaarsan yahay. waa gartay cabasho badan oo xagga xuquuqul insaanka ayaa ka jirtay deegaanka muddo aada u dheer marka waktigan maadaama aad adigu madaxweyne tahay nin muddo badanna usoo ololeynaya xuquuqul insaanka aad tahay maxaa kaaga qorshaysan xorriyatul qowlka xuquuqul insaanka iyo nabadgelyada xataa deegaanka? ahmiyadda koowaad waxaan siinaynaa saad sheegtay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin 7 sano u dambeysay ka maqnayd meesha dab ahaan 7 sano keliya ma ahe tan iyo 1954 sidii deegaanka u hoostagay dalka Ethiopia dawlado maaragtay dimuqraadi waddanka kama jirin marka arrin dheer oo kutubasho xuquuqul insaan oo soo jirta oo dheeraad ayaa ahayd hasii kala daraato oo 7 sano ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd 11 sano u dambeeyayna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran marka arrinta xuquuqul insaanka inaan xooga saarno oo dadkana dad bini-aadam yahay si bini-aadamnimo u noolaado sida xawayaanka una maaragtay u noolaanin inaan cabsi jirin in dadku waddankiisa si xora ugu raaxaysto waa ahmiyadda koowaad ee aan runtii igu dhiirigelisay inaan xilkan raadsado. waxaa kaa barbar socota xorriyatul qowlka iyo xorriyatul maaragtay qoraalka iyo xorriyatul ururka is-ururinta iyo xorriyatul mucaaradada waxoo dhan in dadka loo fasaxo xaq u noqdaan oo sida deegaanada agtooda ee Soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan dhaqanka iyo diinta in la soo celiyo oo maaragtay bulshada dib lagu soo dabaalo in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaalo loogu qaybiyo iyo shaqooyinka iyo in astaantii Soomaalinimo ee laga cararayo dib loo soo nooleeyo arrimahaas ayaan xooga saaraynaa laakiin si bulshada u bogsato xuquuqul insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono annagoo weliba ka eegi doona inayna noqonin qaab la iska argoosanayo ay noqoto dadkii dhibaatooyin ku dhaceenna isha lagu haynayo sidii ay u bogsan lahaayeen. waa garta dadka qaar waxay leeyihiin waa mas-uul madaxweyne dawladda ay wadato oo dawladda ay magacooday xisbigii hore u jireen uu magacaabay marka wax badan ma uu bedeli karo marka dadka sidaasi aragtidaasi qaba maxaad ku oran lahayd? walaalka ma socoto nidaamka Ethiopia ma socotin waa nidaam xiran oo adag bedelka hadda ku yimid maaha midkii banaanka ama mid doorashooyin ku yimid ra-iisul wasaaraha Ethiopia laftigiisa lama dooran hadda wuxuu kamid ahaa xisbigii cadaadiska faraha badan dhulka ku waday laakiin isagu kasoo dhexbay isagoo shaksiya wax badan uu ka bedelo uu furfuray marka ahmiyaddu ma aha qofka sida uu ku yimid waxaa muhiim shaksiyadiisa iyo hogaanka uu rabo inuu hogaaminta uu rabo inuu meesha qaabkii lagu keenay xilligan ma in xilli doorashooyin la gelayay waxaan wuxuu ahaa transition buu ahaa transitionkana kolley nidaamkii ugu habboonaa in loo gala ahayd unbay la noqotay xisbigii talada hayay ee gobolka maamulayay iyo dawladdii federaalka iskaashanaya iyo la tashiida ay la sameeyeen shacabka inay u galaan taa waxba kama qaban karo anigu laakiin mar haddii aan meeshii imid waxaa ila gudboon inaan maaragtay sidii ummadaasi ay si maaragtay sidii hore dhaanta ugu noolaan lahayd dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshadaba loona jihaysto in 2 sano kadib loo diyaargaroobo doorashooyin xor iyo xalaal ah
marka waa fursad baan qabaa shacabka loogu diyaarinayo inay maaragtay isu diyaariyaan ee codkooda cid ay iyagu rabaan ay maaragta ku keensadaan. waxaan ballan qaadayaa 2 sano kadib haddii shacabka ay doortaan cid kale inaan ku wareejiyo oo meesha isku dhejin ama ku dagaalamin sidii caadada u ahayd madaxda afrikaanka. ayaan ballan qaadayaa. duruufo iu kalifaya inaan meeshaas ku adkaysano ma jiraan runtii oo shaksiyeed iyo dhaqaale toona. waxaan aaminsanahay inay tahay fursad aan shacabka naga isugu soo ururin karno oo xorriyad ay raadinayeen muddooyin fara badan aan usoo celin karno iyo xuquuqo fara badan oo kale dadka. waa gartay arrinta oromada iyo soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadal hayaa oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka soomaalida Ethiopia bal taasi see u wajahaysaa iyada laftirkeeda? waxaan jeclaan lahaa inaan ku sheego in 3 arrimood ay yihiin 3 arrimood ugu muhiimsan ee aan ku dhaqaaqi doono guud ahaan. arrinta ugu horeysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno. tafaraaruq fara badan iyo qabyaalad iyo ishaysi badan ayaa abuurmay. awalna sii jeejay 10 sano dib dab lagu shiday bensiin lagu daadiyey. arrintaasi laga hortagi lahaa waa inaan ka diyaar garownaa. waan bilownay inaan hawshaas ka shaqeyno oo aan si daacadnimo u wajahno. taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonto qaabka aan wax u wadno. cid diidi doontaa way jirtaa. ciddaasna xor bay u tahay inay mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka annaga ee hayso banaanka la istaagto si xorana ay u sheegato oo